السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهنتين باه داوديال كلنتي وعن oo wanaagsan waxa la soo gaaray xilli wareedkeeni waxaadna si toos ah inoogu daawanaysaan laanta afka Soomaaliga ee warbaahinta Yemen marka hore aan ku bilaabay wararka ugu doorka corona waxa kamid ah waxa guud ahaan dalka ka socdo qorshaha dhirbirista taasi oo loogu talagalay in kor loogu qaado bilicda guud ee dalka isla markaasina lagu dagaalamo isbeddelka cimilada iyo carruurka وفدي وهجامينيو رئيس الوزراء كحجين كجمهورية الديمقراطية فدرال كإثيوبيا مدني تمسكن ترنا إيو مسؤولين تدقان كالصومالي وجوه الريوم مدحوينها دولة دقان كالصومالي مدني مصطفى محمد عمر أي سوكر ميري اسمها حفيز كحزب برواقو وهجاك داوديال كواسين وحيهين ورركا وقدور كرون داوديال حتى سيكسو دوادا وركاي ورركا لو ففاصن هدو الله يدمنا وركاني وحاسد توس هيدين كل سعسين دونا هنيقوا عبد الرزاق حسين فيله عقمدقي داوديال مركا هرسي أنكو بالله وفدي وهجامينيو رئيس الوزراء كحجين كجمهورية الديمقراطية فدرال كإثيوبيا مدني تمسكن ترنا إيو مسؤولين تدقان كالصومالي وجوه الريوم مدحوينها دولة دقان كالصومالي مدني مصطفى محمد عمر ayaa soo kormeeray dhismaha xafiiska xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida waa hagaag daawadayaal hadda seen ugu dubno muuqaalka soo dhameystiran وهجاك داوديال waxa guud ahaan dalka ka socdo dhirbirista iyo cagaarinta guud ee dalka si looga hortago isbeddelka cimilada iyo carruurka isla markaasina kor looga qaado bilicda guud ee dalka
وهجاك داوديال waxaa magaalada Jigjiga ka qabsoomay xaflad lagu soo dhaweynayo maamul magaalooyinka cusub ee gobolka Liban ee magaalada Filtu iyo Dolocado wahagaag daawadayaal hadda si aynu gudubno muuqaalka soo dhameystiran waxaa magaalada Jigjiga ka qabsoontay xaflad lagu soo dhaweynayay qaab dhismeedka cusub ee maamul magaalooyinka Filtu iyo Dolocado ee gobolka Liban munaasabadda xafladani way ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ugu horeeyo hogaanka nabadgelyada ee dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdiqaadir Rashiid wasiirka xafiiska maalgelinta iyo warshadaha Mudane Axmed Rashiid gudoomiyaha gobolka Liban Mudane Cabdullaahi Yuusuf mas'uuliyiin kale xildhibaano odayaal dhaqameed ganacsato haween iyo dhalinyarada ka soo jeeda maamul magaalooyinkaasi ayaa intay madashu socotay loogu mahadceliyay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo hogaamintii iyo odayaal dhaqameedkii halkaasi ka hadlayay ay tilmaameen in laga wada shaqeeyo isku duubnida iyo wadajirka bulshada sidoo kalena xoog la saaro dhanka horumarka bulshaduna isku tashi ku dhistaan mashaariicaha muhiimka ah gobolka Liban waxa sharaf u ah oo aan anigu marag ka ahay bulshada ku nool dhinac walba inay yihiin dad wanaagsan dun wanaagsan Soomaalinimada jecel waxaana marag ka ah qaab dhismeedka halka gobol inuu marayo caawa 3 gobol iyo maamul magaalooyin shacabkaas waan u hambalyeynaya gobolada 3 aaba waxay ku yaalaan xuduud sidaan ognahay xuduudkaas 2 gobol waxay la leeyihiin dawladda dariska ah min 2 dawladood bay daris leeyihiin sidaan ognahay gobolna dhinacii kale deegaan buu daris kale yahay oo 2 gobol ee kale uu la wadaaga waxa loo baahan yahay in qadiyadii la wada difaaco la iska kaashado horumarka nolosha la wada dhiso ganacsiga la wada dhiso sidii horeyba isku dan loo ahaa inaan haddana lagu kala tagin qaab dhismeed baa kala go'ay oo dadkii way kala tageen aan la orane duruufihii iyo dantii dadka mideynaya haddana inay sidiisa u jiraan mas'uuliyiintu dadka ay aruuriyaan odayaasha culimada diinka dhalinyarta dadka la isku wada si wada jir ah dhinaca kale in horumarka laga shaqeeyo oo magaalooyinkeena aan dhisano ka qaybgalka dadweynaha lagu dadaalo aan la tartana magaalooyinka kale ee dalka deegaanka hadda sidaad ogtihiin mashruuca corridorka inta uu bedelay aragtida dadka waad ogtihiin magaalada Jigjiga dadku hadda gawaarida inta iskaga degaan ayay lugeynayaan magaalada sababta keenaysana waxa weeye waa accesska iyo baahidii oo meesha ma aragtay laga jawaab marka anaguna waxaan u baahanahay bulsho ahaan inaan isku darsano waxaan hayno la isku daro horumarka laga shaqeeyo wadooyinka la dhiso wixii bulshada adeegeeda ma aragtay ay qayb kaga qaadan karto laga qayb qaato xafladda hambalyeynta iyo maaragtay mahadcelinta ku saabsan balaarinta muwaaqirka deegaankeena Soomaalida ee dawladdeenu hadda jirta iyo xisbiga PP ee ruling party ah go'aanada ay qaateen waa xaflad aan ku taageerino gobolkeena Liban iyo gobolada kale la kala jaray dhammaan wixii soo kordhay wax Soomaali u kordhay oo waxna wada kordhay dhammaantood waan boogaadinaa dhinac wanaagan ka eegayna inta dhimanna way noo dhimantahay inta noo qabsantay marka farxadda maaragtay muwaaqirka balaarinta deegaanka markaan ka soo tago marka farxaddaas inaan isla qaybsano iyaan caawa halkan u nimid aan ku wada cashayno muwaaqirka iyo dawladda iyo maaragtay hogaamintii ka shaqeysay inaan ugu mahadcelino waxaan si guud aan u hambaliyeynayaa deegaanka 4 gobol ee soo korortay maamul magaalooyinka iyo degmooyinka guud ee u soo kordhay qaab dhismeedka deegaanka Soomaalida inta soo korodhay waan ka mahadcelinaynaa xukuumaddii xisbiga maadaama ay garteen cid walba oo garatay saaki in 2 gobol la kala jara oo gobolka maadaama aad u ballaarnaa degmooyin gobol kale la sii dhaxmarayay cid walba oo garatay waan ugu mahadcelinaynaa waxaan ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaya magaca gobolka Liban gobolka cusub intuu cagihiisa ugu istaagaya in aan hiil iyo aan la garab istaagi doona hadduu alla idma xafladana caawa aad baan ugu faraxsanahay caawa waxaa ninkii 85 maamuladii jiray ku soo jiray ilaa maanta nool ayaa garan lahaa farxadda iyo faa'iidada iyo fikirka ay leedahay caawa xafladan marka haddii taariikhdii dawladii aan soo marnay aan ka sheekay waqti baa dhacaya 3 shay baan
yaan hadla mid dawladda ayaan leeyahay midna shacabka ayaan leeyahay midna maamulada shacabka Soomaaliyeed baan leeyahay midna dawladda ayaan leeyahay midna maamulada gobolada oo dawladda ka siimida ayaan leeyahay runtii marka la eego sida hadda loo sameeyay maamuladan gobolada degmooyinka iyo magaalo madaxyada hadda tan xafladan caawa ay kamid tahay waa qaybtii ugu miisaan aragti Soomaaliyeed ku dhisneed weeyaan intaan noola maamulka ku soo jiray wax la qaybinaya oo buuqiyo maamulka dhexdiisa ah si caadi ah war aan u geeyna la yiraahdo way ku mahadsan yihiin 114 ayaan ugu mahad celinaya waxa maamulka gobolada waxaan la dhisay ee dawladda mas'uuliyadda sare aad kaga hooseysaan Allah idinku garab galo cadaaladana wax deeqda umada cadaalad oo eega miisaanka oo eega wax garad oo eega tashi shacabkana sameey tacabka la tashadana iyo maamuliyada odayaasha dhaqanka aad la tashtaana sameey Allah idinku garab galo وهجك داود يلا وركنا وحسيت صايدين كوي تبيني يعني جوا عبد الرزاق حسين في اللي عجمة دقة أنت كل مدونه كلن كحيجو وحنا دين كي تجي سداينا بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.